xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ah xildhibaanada laga soo darto deegaanada bariga gaar ahaan deegaanka Tale ayaa maanta ka hadlay shir la filayo in dhawaan halkaasi ay ku qabsadaan qolada Khaatumo iyagu ku dhaqan deegaanadaasi shirkaasi oo barihii ugu dambeeyay si xoog looga dareemay deegaanadaasi isla markaana qaban qaab xoog loogu jiray qabashadiisa ayaa waxa uu xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore ku tilmaamay in ay arintaasi tahay mid sharaf dhac ku ah qaranka iyo xukuumadaba isagoo xukuumadana u soo jeediyay in ay arintaasi qayb laxad ka qaadato isla markaana ka xildhibaan ahaan iyo ka shakhsi ahaan isagoo garab taagan yahay soo bandhigitaanka xukuumaddu soo bandhigto hab nidaameedka wax looga qabanayo dhalinyarada waxaana kamid ah hadaladiisa satan iyo deegaanadiisa inuu ka taliyo xaq u leh xukuumadda ayay tahay inay policy ka leedahay arrimaha noocaas oo ay noo yeedho ama fikirkayaga haddii iyadu mid haysana ay noo yeedho haddaanu annagu rabno inaanu fikir curinana ay platformkii iyo qaabkii looga howlgeli lahaana samayso qaab kasta oo sahlaya in arrimaha wax la iskaga ogaadana xukuumadda ayaa xaq u leh inay facilitate karayso sidoo kalena waxa uu xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore u soo jeediyay dadweynaha deegaankaasi ku dhaqan in ay imaadaan miiska wada hadalka isla markaana xukuumadda wada hadal la furtaan si ay xaqooda u helaan buu yiri xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore isagoo arrimaha si ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisii ilaa iyo 22 sanadood baa deegaankaasi tag wuxuu ku jiray xarka jiidad aan meel dhalahayn marka in ummaddu tala macnaa isugu timaado oo qaybaheeda kala duwantay isu yimaadaan wax isweydiiyaan oo waxa runta ah iyo waxa aan laga maarmayn laga wada hadlo ayaan u soo jeedin lahaa dhamaantood oo ay gartaan in dalka iyo ummadda la wada leeyahay oo aan cid gaar ah ka talin karin ciidamadii Soomaaliland dhulkay joogaan waynu ognahay deegaamada inta hadda Soomaaliland ka madax banaan oo aan maamulku si fiican u gaadhin tiradooda waa la ogyahay taladuna waxay ku habboon tahay in la isu yimaado oo nin kasta oo wax tirsanayaan oo goobta ka hadlo anu dhamaanta dadka deegaanka saasaan soo jeedinaya guud ahaan isku soo wada duubo dhawaaqani ka soo yeeray xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaankaasi Tale isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa imanaya iyadoo dhawaan la filayo in si rasmi ah shaaca looga qaado shirweyn ay beesha deegaankaasi ay halkaasi ku qabsan doonto waa Faisal Fifa telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Hargeysa.